السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دماء ولا هلكن iga daawanaya meel walba oo aad joogtaan iyo si walba oo markaa aad maqlaysaanba muuqaalkan maanteeto waxaanu analysis aan ku sameyn doonaa bal xaaladii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya iyo arintii Itoobiya waxaan ka jawaabi doonaa bal dhowr su'aalood oo aan isleeyahay inaynu bal fiirino oo qaab runtii waaqici aynu fiirino maanta waa muhiim oo ay ka mid tahay Itoobiya badda Soomaaliya xoog ma ku qaadan kartaa maxaa xilligan ku soo beegay in Itoobiya ay damacdo Soomaaliya iyo arrimo kale oo noocaaya ayaan ka jawaabi doonaa ama aynu falanqayn doonaa oo muuqaalkan ku soo gudbin doonaa iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo markaa ka dhuntay xamar oo dhuusamareeb u cararay loona arko inuu ka dhuntay barashirkii badnaa lagu saaray maxaa tilaabo u qaadi weeyay dawladihii islaamka ahaa sida Masar iyo Turki oo inay garab nasiyaan laakiin cid jahaysa la laayahayna iyo xoga kale oo la leeyahay Itoobiya ayaa doonaysa inay 60 maalmood ee fooda nagu soo hayso ay markaa xarun ka samaysato lughaye yaariba kale xasaasi ayaan ku falanqayn doonaa muuqaalkan soo dhawaada meel walba oo aad joogtaan iyo si walba oo markaa aad maqlaysaanba waxaan doonayaa inaan idinka codsado haddiina horay subscribe ugu ahayn channelka subscribe saara ku soo biira asxaabtayda boqolkiiba 65 dadka daawada muuqaaladeeda subscribe ma aha way iska daawadaan oo kaliya marka fadlan subscribe saara iyana soo qora commentiyo la xiriira wixii aad doonaysaan bal inaan ka hadlo oo aan research ku sameeyo oo aan muuqaala ka sameeyno aad baan idin salaamaya wax walba oo dalka maanta ka socda waxa ka culus arinta badda wana sababta ahamiyada u siinayno waxyaalaha kale yar-yarka ah waxyaalaha aynu horay u soo daalnay gudaheena ah laakiin waxyaalaha badda waa mas'ala ka duwan waana mid wax walba ka culus weeye taa waa halka marka hore dhanka Itoobiya maanta waxaan isleeyahay maalin ay ka awood yartahay ama ka jilicsan tahay mudooyinkii la soo dhaafay ma aysan soo marin Itoobiya maanta doonaysa inay badda yada qaadato dhulkanaga waa Itoobiya kala qaybsan oo 4 ilaa 5 kooxood oo kala duwan u qaybsan civil warna uu ka dhax socdo waa Itoobiya dhaqaale la'aan runtii aad ula liidata deyn aad u tira badan markaa ku jirta waliba iska bixin weeday deymihii markaa lagu lahaa paymentgoodii iska bixin weeday waa Itoobiya aan siyaasadda caalamka saaxiibo badan aan ku lahayn oo aad u hareeraysan marka laga reebo mid ay hadda raadinayso xulufadan Chinese-ka iyo ay rabto inay hadda ku biirto oo aysan meel weyn ka haysan dawladihii inta badan Itoobiya inagu soo diri jiray ama gadaal ka soo riixi jiray reer galbeedka ahaa ayaguna maanta waxay marayaan xilligii ugu liitay waad aragtay oo ay ka adkaan laayihiin Hizbullah iyo Hamas iyo Xuutiyiintii bay dhaqaashin laayihiin dawladihii reer galbeed oo ayaguna waxaad ka arkaysaan in ciyaartii iyo dagaalkii noocii ay yaqaaneen oo dunida ay ku haysteen in markaa la isaga daba yimaaday oo farsamadii hubka iyo gam powderkii qaabkii loo isticmaali jiray markaa la isaga daba yimaaday oo ay waxba dhaqaajin laayihiin ayaduna way muuqataa marka dib u fiiriso arrimaha taariikhda ah ee Soomaaliya iyo Itoobiya dagaaladoodii ayaan horna marba ka sheekeeyay waxaan horay idinkugu iri mar walba oo ay dunida muslimka ah iyo yuhuuddu ay dagaalamaan annaga Itoobiya waa dagaalanaa marka hore doonayaa bal inaan dib ugu laabto idiina sheego sida ay isugu xiran yihiin taariikh ahaan dagaalka Falastiin iyo Israa'iil u dhaxeeya iyo dagaalada iyo isqabqabsiga Soomaaliya iyo Itoobiya u dhaxeeya mar walba oo dhanka yuhuudda iyo Falastiin ay wax dagaal dhex maraan Soomaaliya iyo Itoobiyana wuxuu baa dhex maraa taariikh ahaan waa in taariikhaw dib ugu laabo 77kii fiiri kasii shafiiri 64kii fiiri kasii shafiiri Soomaaliya waa gateway-ga waa southern gateway oo dunida Carbeed laga galo way Soomaaliya meel istaraatiijiga baynu ku naalnaa annaga iyo carabta waxyaalo badan baa isa ka xiran dadku waxay dhahaan anagu carabaniina maalinka aad ka hadlayay dad baa lahaa anagu carabaniina mas'aladu carabnimo ma aha mas'aladu waa diinta markaysa soo marka anagu seen isku aragno iyo waxaynu nahay muhiim ah waxa ay gaaladu inoo arkaan iyo ajaanibta muhiim waxay noo arkaan ayaga aan ka mid nahay inoo arkaan waana sababta ay mar walba inoo saamayso markii ay Gaza iyo dhulka wax ka dhacaan mar walba inoo saamaysa taa waa halka dhanka kale markii aad fiiriso dagaalkii face to face ka ahaa dawladuhu ay dagaalami jireen dunida hadda uu ka sii dhamaanaya
dagaalkii laga yaabo in dhowr kun oo baabuur ah iyo diyaarado iyo ciidan la iska horgeyn jiray sida anagu aynu Ethiopia la dagaalanay 1977kii dagaaladii noocay ahaa dunida ay ka dhamaadeen hadda soo baxay dagaalo kale oo runtii ila meeraysa dagaalka hadda ka socda meesha loo yaqaan Ukraine iyo Russia dagaalka hadda Gaza ka socda waana dagaal aan la kala xoog badnayn ila meeraysa la yiraahdaa dagaalka 17 sano ee la soo dhaafay al-shabaab uu dalka iyaga uga dagaalamayo asagoo ayagoo markaa ay la dagaalayaan dhowr iyo 30 kun oo ciidan oo Soomaali ah ilaa 40 kun oo madow ah diyaarad cirka ka caawinaya oo Turkida ay leeyihiin Mareykanka iyo dawlado kale wali wala gaad kan laayahay dagaalkan ila meeraysa la yiraahdo marka waa dagaal dunida ku soo ziyaaday waana dagaal runtii khatar badan waana dagaal khasaaro badan weey markii aan fiiriyo oo aan si waaqici u fiiriyo in Ethiopia maanta dagaalano haday dhacdo dagaalkii 77 oo kala ma dhici doona ee dagaalka hadda nooca ila meeraysa la yiraahdo ayaa Ethiopia iyo Soomaaliya dhaxmari doona وهذه إثيوبيا أي سندب لابنين أو أي صوت هاي ما دونتا إثيوبيا حكى الله سالو هاي إثيوبيا إلا يتشجع يكشش إلى إثيوبيا كو أي سن نبضة كتشوي ويان سوماليدا أي كلا جرم ويان باي ما دونتا وحد بحسوستي هذا الخري ويري كوفي آن أو كجا هاللي كانيا أو يري وحين كجد جيا إننا سوماليا جرينين إننا كبيرين بيس دولة بيس كيبينكا وهذه سوماليا إننا كبيرين هذا الكيسي مركي أنفيريو نحر كيسي وحوها هذه دجال كاسي وقرحه ودجال وين أو نقضه وكيان كسومالي ودحيا كيان كو وحيس كدفاع دونا الصوماليس مش الصومالي كيان بيس كدفاع دونا وكذا الصومالي ده الصومالي ده جنب بيس كدفاع دونا كيان كا مش الصومالي ده NFA ده جنب بيس كدفاع دونا وهي ومالك كهذا ما أنت يتو كيان ويكتح مقدام الشباب بين ولد قالمين إنه كسماية وآلينا بيدلك كسر قلين لكن ما أنت إلا يجارسة إلا يمنار تقول حيسا الشباب عشورتك كقال سامنت النوديستن كل يهي إن الصومالي ما أنت كم إلى عشرة بابورت أجا عشورتك كقاعدة قف كهرام بالدلان قاري كهرام بالجبان وحرام بالسمايان كيان كنا حباك قرامين إسكده إني وحكا قبطان حرمي دولة كيان يكون حهايين قبل كان نوديستن أردن وكعار أسكت بدوجة يمعلمين تبدوجة نوديستن وحكي يجي كم سؤال مرة كعار ما كيسان ما عرفت كان وحكينا Soomaali baa lama kala garan karay Soomaali cid kala guri kartaa ma jirto nimankan afka duuban tactics-gooyinka isticmaalaa waxa kamid ah in dadka nadiisa degan naftirkooda ay bahaayaan oo kuwa ay noqdaan kuwa ay la shaqeynayaan marka wiilka gaarisa jooga ee sujuuga ah ee nimankan taageersan yaa garan karaya. We had tended often to be very careful not to allow neighbors to participate in peacekeeping operations. They often have their own history, they come with their own issues, and if you are not careful, it complicates the situation. I recall I was in Kenya in 2008 helping them resolve their conflict when the question of deploying Kenyan troops to Somalia came up. And I recall a conversation I had with several of the ministers. I said, be careful. If you're going to deploy troops to Somalia, who are your neighbors, and you also have your own Kenyan Somali population. So you have Kenyan Somalis and Somali. If the population gets pumped up against Somalis and they begin attacking them, which Somalis are you attacking? The local Somalis or the other? And you can create divisions amongst your own society. And to some extent that has happened. And so when you have a sort of a force of that nature, the rules of engagement and deployment becomes important. Would you deploy immediate neighbors? Or would you go further afield to bring the troops? haddii Etoobiyaanku ay gudaha Soomaaliya ka dagaalamaan Soomaalida xuduudda degan iyo Soomaalida Etoobiyaanku ma kala garan karayaan mana kala sooci karayaan annagaan kala garanaynin tusaalaha ugu haboon oo aan rabo inaan sheego هذا مجال بلا يراهدو حدود كتالة أو أيام دويتو أي شقاقة أو أكاد عضي بابور تكنيكا أبى جودها قلي سومالي بعد دجال ميسي ما أعرف إنسان ده كا بودر كدجن
إلا أي بقول لا بقوله كيلومتر بجودها إثيوبيا ماشى الصومالي قلبي ده بدقيقة نعم سكان أيجا دكان بلان دكان dad kan nooc ah oo kale taa sida Ethiopia ugu qancinayso marka Ethiopian baatiin badda wax ka leeyihiin badda wax ka difaacada waa sida hadii se kuwa ay laayaan sida kuwa ugu qancayaan sidoo kale kor u soco ilaa hatta waxa tagtaa bal boorma degan marka Ethiopia ku soo duusho layso oo u layso Soomaali ahaan iyo badday diideen markii loo laayo kuwa gudaha Soomaali galbeed ku jira meesha boorma ku aadan oo ciisaha iyo Samaroonka ah sidee u ogolaanayaan in badooda la qaatay dadkooda in la laayaa yaa kala garan karaya cid kala garan kartaa ma jirto waxay noqon doontaa marka in meel bamba la geliyo in meel bagaarigooda lagu qarxiyo in lala dagaalamo in iska badaayo Soomaaliya gudaha Ethiopia meesha hadda Ethiopia loo yaqaano iyo gobolkii ay xooggan nooga qaateen inuu dagaalku ku baaho cid kale cid kartaa ma jirto sida kaliya arrinta Ethiopia uga badbaadi karto waa inay dagaal lagu soo qaaday oo naga tagto laakiin hadday gudaha soo gasho oo ay dadka layso oo lagu dagaalamo وحقيقة ويدرع وجارية وايد تقواس اللي وزلت كودي وي تذكر ما يلي كو Soomaali دقنا ما لينين كو كلا ما لينين ما يلي Ethiopia markay naftirkooda ay kala garan waayaan bay kuwii Soomaali galbeed ku dhex jiray laynayaan waana sida dadku ay ku kacayaan marka ugu dambayso taa marka waa halka Ethiopia marka mar walba isku dayaan in dagaalka soo qaadaan dagaalkan isku bedelayaa wuxuu noqon doonaa dagaalka hadda Gaza ka socda oo kale oo marba inta meel laga soo baxo baasuuke gaarigooda meel maraya lagu dhufanayo ومربى قف اسكو قرحنا يا دور او كوخو بدن او maxaa leeyahay ay ka cayaan islaamiyada markaysan dhanka kale waxaan hadda hor idin sheegay wax walba oo dunida Carabeed yaala dalkeena way imaanayaan anoo tusaale ka dhigayay maalinkii ugu horeysay inuu arkaynay dad ba isqarxiyay oo alqaacida isqarxinaysay maalinkii ugu horeysay inuu maqalnay Soomaaliya markaan waa la yaabay si qof isku qarxinaya ilaa marka dambe ay noo timaaday xagee nooga timaaday dunida Carabeed bay ka timaaday dunida muslimka bay ka timaaday sidaas oo kaleeto hubka gacanta lagu sameeyay ee maanta Hamas iyo ay sameeyaan Xuutiyiinta iyo Hizbullah ay sameeyaan hadaysan hadda dalka naga oolinin way iimaanayaan very soon dagaalkan hadduu qarxana wax ugu horeeyo dalka iimaanaya waxa weeye in gudaha Soomaaliya lagu sameeyo hubka iyo bambaanooyinka iyo baasuukayaasha garbaha laga tuurayo oo hadda ay u maaran weyday dawladda sheegan jirtay inay tahay dawladda adduunka ugu awoodda badan Israa'iil ahayd arkaysa waxa ay dhan way iimaanayaan yaa keenaya kooxaha keenay kooxaha iyo dadka nagana waxba ka dhaxeeya isku xiray wala diinta Ethiopia way helaysaa hubka ka iimaanaya Mareykanka iyo Israa'iil way helaysaa sidoo kale kuwan waxay helayaan hubka ay dunida muslimka iyo kooxaha muslimiinta sameeyaan way helayaan wana koloshka marka ka dhaxeeya sida daradeed marka waxa ay dhan waxyaalaha ii muuqda inay iimaanayaan haddii Ethiopia aysan ka laabanin dabceeda oo ii muuqda way muuqataa Soomaaliya ma lahan dawlad hor wada oo arrinta ka shaqeysa laakiin waxa ii muuqataa inay positionkii dawladnimadii Soomaaliya ee la waayay ay qaadan doonaan kooxo islaamiyiin ah qaadan doonaan ama kuwa hadda dagaalamay ha noqdaan ama kuwa kale oo dib ka soo baxay arrintan ku yimaaday ha yimaadaan mar walbana oo tensionka noocaana uu dhaco oo ajaanibtu ay dalka soo gasho oo ay isku daydo in dalkeena la qaato kooxaha islaamiyiinta ama dalka dhashay markaad ku laabato sida ay taxadii ku sameysmeen markaad ku laabato sida ay muqaawamadii ay ku sameysmeen xakiimta markaad ku laabato sida al-shabaab ku sameysmeen intaba kacdoon Ethiopia looga soo horjeeday bay ku yimaadeen haddii ay mar dambe yimaadaan yaa imaan doona su'aal kale ku hadda joogay shacabku sabab garan doonaan oo taageero shacab ay heli doonaan oo ayagaas ummadda hogaamin doona xumaantooda inta meel iska dhigaa la oran doona idinkan hogaamiye mise kuwa kala imaan doona waxyaalaha muuqda weeye oo dadku ay fahmi karayaan dhanka kale dawladihii muslimka ah ina sabab garan lahaa weligeedna la garab taagnaa mar kastoo in Ethiopia la dagaalamo sida Masar iyo Turki waxay maanta la yihiin dawlad Soomaaliyeed oo markaasi dalkeeda difaacaysa oo ay garab istaagaan bay leeyihiin haddii marka la heli lahaa dawlad la garab istaago waxaan aaminsanahay inay Turkida iyo Masaaridu oo labaduba hubka casriga ah ee caalamka maanta yaala samaysta sida diyaaradaha sida kaarayaasha iyo hubka inta badan labada ayaga samaysta cidna kala ma imaadaan cid maanta hayto hogaamisa dalkeena oo ay mataqaanaa ay support gareeyaan bay leeyihiin xogaha hadda soo baxaya ayaa waxay sheegayaan
in Ethiopia doonayso in 60 maalmood ay soo socda inay xarun ka samaysto lughay halka madaxweynaha Soomaaliya uu dib ugu laabtay Dhuusamareeb oo 7 bilood ka hor dagaalkii la yiri al-shabaab lagu jira lagu fashilmay dib ugu laabtay wuxuu ka dhuumanayaa pressure-ka la xiriira Ethiopia ka qaatalaabo miyuu ka dhuumanayaa markii hore meesha uu tagayna dagaalkii la dagaalanka al-shabaab kan Xasan waxyaalo marka taagnaa oo fashila oo musuqmaasuq uu ka yahay ayaa looga dhuumanay iyo ciidamadii oo marka la burburiyay baa looga dhuumanay maanta ito oo laga sugayay dawladda Soomaaliya inay jawaab ka bixiso in safiirka la cayliyo in xiriirka Ethiopia loo jariyo talaabooyin kale tan xasan dib wuxuu ugu laabtay Dhuusamareeb isku soo xiray shacabka Soomaaliya doonaya inaan ku iraahdo waa xilligii waxaynu joognaa inuu sameyn lahayn banaanbaxyo ka dhan xasan sheekh أول حين سميناه أما الصومالي أي سميان بنابح كذا إثيوبيا وبور ما كذا عيو حمر كذا عيو هرجيسة كذا عيو الصومالي نسبة كذا لكن this time وحلقي أينو حسن كبر يشرجرين له إنه حلك كدبو أما إنه ذلك كوه جاميو إن ذلك الدفاع وإن سوردي سلو جبو وإن اللي هذا أما ذلك الدفاع أما حلك كدب اللي هذا وإن برلمان كنت لعبك قادم وين وجهدا لا هذا وجهدا سرنتي أن لا أدينين حاضر خطر بيكون شفته وحنا إيمان دونا إن كوحك هلا أو عايزن هاي أمضى إليه هجاميا أمضى هجاميا بإيمان دونا سينما كان أفكار دوبارة وقالته هدي لوايو بوزيشن كإدولة دولا هاي دنا قالته أي إيمان دونا أد بمرك حاضر قطرت هاي نمان كان ويسو دوانا يان وين كسر ضريان إسكده إن لو تشوابه هذا إن لقى أنتو ولا عارو وبهنتي ayaa hadda la bilaabay intimihii la deysto oo farxumadii iyo wixii uu madaxa xasan isaga shubiyay inuu dib ugu laabto ayaad moodaa inaynu hadda marka aynu arki doono maalmaha soo socda dalka la badbaadiyo dhalinyarada waxa leeyahay aynu sabaabulno banaabaxay waa weyn aynu ka sameeyno caalamka iyo meel walba aynu ku cadaadino xasan inuu ama xilka ka dago ama dalka u difaaco. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.